ra'iisul wasaare xamse oo xilka ka qaadaya Mahad Salaad xasan sheekh maxamuud oo si weyn uga carooday xilka qaadista Mahad Salaad shacabka Soomaaliyeed oo aad u soo dhaweeyay go'aanka geesinimada leh uu qaatay ra'iisul wasaare xamse qodobadaas ayaan ku faaqideynaa muuqaalkeena maanta balse dadkeena oo sheer gareeya muuqaalka oo gaarsiiya dunida oo idil kuna faafiya gulubyada mar kalena ku soo dhawaada channelka Qaran News. ra'iisul wasaaraha dalka xamse ayaa qaatay go'aan qaraar oo ah in xilka laga qaado Mahad Salaad oo la sheegay inuu abaabulayo amaba uu wado waxaan shacabka Soomaaliyeed dan u ahayn. ra'iisul wasaare xamse ayaa ku doodaya in aan loo baahnayn in dadka Soomaaliyeed dhibaato kale lugta loo geliyo iyadoo dalka ka jiraan abaaro iyo halis kale. waxa uu sheegay in loo baahan yahay qof ka soo bixi kara hoggaanka nabad sugidda dalka aamin ah. sidoo kale waxa uu sheegay in aan loo baahnayn mas'uul cid gaar ah beegsanaya. waxa uu sheegay inay tahay hay'adda nabad sugidda qaranka NISA meesha kaliya ee dalka ugu muhiimsan loona aasaasay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo kuwa la midka ah balse aan loo aasaasin inay beegsato shakhsiyaad hore uga tirsanaa dawladdii hore iyo dawladahii dalka ka soo arrimin jiray. waxa uu sheegay in tan iyo markii Mahad Salaad xilkaas loo magacaabay uu abaabulayay beegsiga argoosi dadban oo uu ku wado mas'uuliyiin iyo saraakiil hore uga soo qayb noqday dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xamse ayaa la sheegayaa in saacadaha soo aadan uu sameynayo inuu xilka ka xayuubiyo Mahad Salaad oo hore si aan sharciga waafaqsanayn ay u meelmarisay xukuumaddii xilgaarsiinta ee Rooble taasoo sharci iyo awood iyo mandate u haysan inay ansixiso taliyaha nabad sugidda qaranka. xukuumaddii xilgaarsiinta uu hogaaminayo Rooble ayay ka mid tahay eedaha waaweyn ay gashay iyo dambiyada ay dalka ka gashay iyadoo xukuumad xilgaarsiina in la mariyo taliya nabad sugidaysan awood u lahayn. ra'iisul wasaare xamse ayaa ku doodaya in golihiisa wasiirada marka uu soo dhiso ay ansixin doonaan agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda NISA oo isaguna uu magacaabayo. waxa uuna sheegay soo jeedinta madaxweynaha inuu la tagay balse madaxweynaha taas uu ka carooday. xasan sheekh maxamuud ayaa ka carooday markii uu maqlay in ra'iisul wasaare xamse uu rabo inuu xilka ka qaado Mahad Salaad oo ay saaxiib dhow yihiin xasan sheekh maxamuud. xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda mid shacabka Soomaaliyeed iyo danaha Soomaaliyeed ay uga muhiimsan tahay saaxiibtinimada iyo danaha shakhsiga ah balse waxa uu meesha ka saaray dhaartii iyo ballanqaadkii uu sameeyay shacabka Soomaaliyeed. waxaana muuqata in Mahad Salaad uu garab ka helayo xasan sheekh maxamuud in muddo ay saaxiib ahaayeen balse shacabka Soomaaliyeed ayaa aad ula yaaban inuu kala saari waayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud saaxiibtinimada iyo shaqada qaranka ee horta alla isaga. waxaana muuqata inuu aad uga xumaaday aadna uga carooday go'aanka geesinimada leh ee qaraare uu qaatay ra'iisul wasaare xamse ee ah inuu xilka ka qaadayo. Mahad Salaad ayaa la sheegaya inuusan hay'adda nabad sugidda uusan fahansanayn gudaheedana uu ka dhex wado waxaan shaqaba aysan ku lahayn hay'adda nabad sugidda oo ah aarsiga iyo beegsiga dad gaar ah oo uu sheegay inay cadow Soomaaliyeed yihiin. hay'adda nabad sugidda ayaa la sheegayaa in dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ay sameyn jirtay dawladdii madaxweyne Farmaajo aysan sameynin hoos u dhac weyn oo ku yimi. taas beddelkeed waxaa dhammaanba hoos loo dhigay miisaaniyaddii hay'adda nabad sugidda ku bixi jirtay oo 70% la dhimay. eedahaas oo dhan waxaa loo jeedinayaa Mahad Salaad oo la sheegayaa inuusan fahansanaynba shaqada ee hay'adda qaranka Soomaaliyeed ay u qabatay hay'adda nabad sugidda NISA. xamse go'aankan uu qaatay waxaa la sheegayaa inuu arkay xalka dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed. waxa uuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku wargeliyay in aan loo baahnayn Mahad Salaad inuu ku sii sugnaado xarunta hay'adda nabad sugidda looga arrimiyay Habar Khadiija. waxa uuna sheegay inuusan u qalmin inuu taliyaha nabad sugidda uu noqdo. waxa uu kula taliyay in xukuumadda uu soo dhisay uu ku darayo Mahad Salaad taa beddelkeedna hay'adda nabad sugidda in loo magacaabo qof mudan shaqadaas oo ka soo bixi kara balse xasan sheekh maxamuud ayaa aad uga carooday. waxa uuna sheegay in aan laga qaadi karin amaba loo baahnayn in hadda lagu sameeyo isbeddel Mahad Salaad. arrintaas ayuu aad uga carooday xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegayaa kulan dhex maray xamse iyo xasan sheekh maxamuud in arrintaas ay ku kala kaceen loona balamay kulamo dambe balse waxaa muuqata inuu difaacayo oo uu saaxiibtinimadiisa ilaalinayo xaggii la rabay inuu ilaaliyo dadka Soomaaliyeed danaheeda iyo shucuubta dadka Soomaaliyeed waxyaabaha ay u baahan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud.